madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro dib u doorashadiisii in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliland kadib waxa uu ku tagayaa safarkiisii ugu horeeyay ee dhinaca dibadda istaga Imaaraadka Carabta halkaas uu ka helay casuumaad rasmi ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu maalinimada berri ah ku wajahan yahay magaalada Abu Dhabi ee istaga Imaaraadka Carabta isagoo kulamo la yeelan doono madaxda ugu sarreysa waddankaasi hase ahaatee waxa xusid mudan in casuumaado iyo martiqaadyo rasmi ah uu ka helay dawladaha Itoobiya iyo Djibouti balse uu ka doorbiday in uu aado Imaaraadka Carabta Djibouti iyo Itoobiya ayaa casuumaad u soo diray madaxweynaha Soomaaliland ka hor inta uusan qorsheysan in uu gaaro Imaaraadka Carabta hase ahaatee wuxuu aqbalay Imaaraadka Carabta casuumaadiisa madaxweyne Ciro ayaa safarkiisan waxa uu daaran yahay sidii uu u fariisin lahaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland adduunka intiisa kale ay kala tacaamulayso ama ay kula macaamilayso waxa uu casuumaad ka helay Imaaraadka Carabta iyo Djibouti laakiin qudhooda waxay ku xiran yihiin Imaaraadka wuxuu ka doorbiday intii loo dhaxayn lahaa in uu si toos ah ula macaamilo Imaaraadka Carabta Soomaaliya iyo Itoobiya hadda waxa ka dhaxeeya colaad sukeeyo inkastoo Soomaaliland aysan wali helin ictiraaf markaasi rasmi ah ama caalami ah waxa uu doorbiday siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland in uu ku jaangooyo si ka fool isla markaana hadda uu Imaaraadka Carabta ee ka bilaabayo safarkiisa ugu horeeyay isaga oo dalal kale oo dhowrana gaari doono isla markaana waxa uu doonayaa in uu saxo wixii ka khaldamay Soomaaliland intii talada uu hayay madaxweynaha isaga ku horeeyay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi heshiis afgarad oo ay gaareen Muuse Biixi iyo sidoo kale Abiy Ahmed koodii January sanadii hore 2024 ayaa muran badan dhaliyay ka oo muddo badan isqabqabsi ka dhexdhaliyay dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya Soomaaliland budo gaar u tuman ay ahayd madaxweyne Ciro ayaa hadda rab in uu jaangooyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland casuumaadiisa ugu horeysay wuxuu ka helay Imaaraadka Carabta inkastoo casuumaado uu ka helay Djibouti iyo sidoo kale Itoobiya uu ka dhaga adeega isla markaana si toos ah u doorbiday inuu la tacaamulo Imaaraadka Carabta waxa xusid mudan in dawladda Xasan Sheekh ay la shaqeynayaan hase ahaatee hadda waxay xiriir la yeelanayaan Soomaaliland warar qaar oo soo baxay todobaadii ugu dambeeyay waxay sheegayeen in Imaaraadka Carabta casuumaad rasmi ay u direen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana taasi ay muujinaysaa in xiriirkii dawladda federaalka Soomaaliya Imaaraadka ay ku bedelanayso tan maamulada ee maamul goboleedyada sida Jubbaland iyo soo kale Soomaaliland oo iyadu aan wali helin ictiraaf caalami ah wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena